marka maalinta qolada Soomaaliyeed bay istooranaysa halkan guriga shaqaalaha uu yimi incident baa ka dhacay maalinta markaa meesha nin waalan baa ayaa toogtay ilaahay madina xabadii way ka dibtay markii la ii sheegay baan la hadlay soo xafiiska jooga markaasaan ku yiri wasiir goli xildhibaanada inuu kala fasaxayaa dee isnaadkan oo maqaleed mar kale inuu waar joog buu yiri xildhibaanadu way kala tegin hawsheeda waan gudanayaa uu noo yimi ninkii waxaas ku dhacay soo kaalma oo firka naxsanay oo yiri war waajibku inuu guto wardeena maraya waa noo yimi waa wax dee moogtay dee geesinimada inta le nin xabada ka kadibto dhafoorka loo saaray oo diiday inaan golihii fasaxayna golaha hay waan imanay oo noogi oo hawshiisa ka gudan Ahmed baarlamaanka isku marnaan soo gaadhin oo qoladii aanu bedelay ayuu ahaa anu baarlamaanka 97kii baan galay laakiinse intaaba ragidii la socday markuu baarlamaanka doodihiisii shirweyniba doodihiisii cajiibka ah oo baarlamaanka ku jiray baarlamaan aad iyo aad u diiran oo rag badan isku heleen rag aad u diiran baa ku jiray baarlamaanka oo kullaba kaayay uu ka diirana dad badan oo quality leh ayaa ku jiray aniga Ahmed taariikhdiisa waa la socday education systemkii warshadii soo saartay warshadaas aanay soo saartay iskuulkii secondary Amuud ka bilaabana waxaan galay 64kii marka magaciisa iyo taariikhdiisa iyo waan raadkiisa baan iskuulka ugu tagnay isagii raggii la midka ahaaba waxa noo iman jiray nimankii iskuulka dhameeyay marka dambe shaqada tagay Muuse Idaar baa kamid ahaa ragga noo yimi yana hanuunin jiray marka ardaydan waxa uu hayday faan bay noo hay hebel iyo hebel baa iskuulkeena soo maray oo sariiraha aanu ku seexanayay oo kalaaska aanu fadhiyay oo library-ga aanu ku baranayay systemkaas aan soo wada saaray nin muuqdo oo qarsoomi karin buu ahaa ardaynimadiisina nin sportsman halkan koob baa la dhigi jiray halkaas aanu ka daawan jiray ciyaarihiisa markuu dee xamar tagayna shaqooyinku qabtay waa la garanayaa iyo integritygiisii cajiibka ahayd ee uu maamul walba kula dhaqmay aniga nolosheedu waxay istaabatay oo intii aan gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka noqday ayay nolosheedu istaabatay laba arrimood ma ka xusuustaayo arrin waxa weeye markii xeerkii ururada asaaskoodii la sameeyay waqti buu lahaa ururadu inay dee furmaan oo chance la siiyay ururada Ahmed iyadoo chance-kii dhacay oo xidhmeen inaan urur la furi karin ayuu yimi rag baanu ka wada shaqeynay Maxamed Xaashi ka mid yahay Maxamed Xaashi Cabdi iyo Xasan Macallin xeerkii baan dib u furay Ahmed chance-ka markaas uu helo ururka kulmiye markaas uu furay iyadoo xidhantay ayaanu xeerkii dib u furay amendment baanu sameynay labada gol uu maray madaxweynuhu saxay Ahmed markaas uu chance-ka kulmiye sidaas uu raggan ka wada shaqeynay Maxamed Xaashi Cabdi bay ka mid ahaayeen waliba labadan inay ila yimi isagii waxay ahaayeen Xasan Macallin oo meel wada fadhiisanay taan nolol marba istaabatay marka kale waxay ahayd mar Sooyaalba ayaa isdooranaysay walkan guriga shaqaalaha maalinta ballamaan u lahayn soo wasiirka maaliyadda inuu noo yimaado dee markuu wasiirku ku yimaadana dee waa la rifaa waxaan u diyaar garoonay inaan rifno oo miisaaniyadii iyo tii baarlamaanka iyo waxa wax ka weydiino marka maalinta qolada Soomaaliyeed bay istooranaysa halkan guriga shaqaalaha uu yimi incident baa ka dhacay maalinta markaa meesha nin waalan baa ayaa toogtay ilaahay madina xabadii way ka dibtay markii la ii sheegay baan la hadlay soo xafiiska jooga markaasaan ku yiri wasiir golihii xildhibaanada inuu kala fasaxayaa dee isnaadkan oo maqaleed mar kale inuu waar joog buu yiri xildhibaanadu way kala tegin hawsheeda waan gudanayaa uu noo yimi
ninkii waxaas ku dhaceen isagoo kaalma oon firka naxsanay oo yidhi war waajib bay nagu guto waan idiin maraya waanu noo yimi waa wax dee moogtay dee geesinimada intaa leh nin xabadda ka kadibto dhafoorka loo saaray oo diiday inaan golihii fasaxayna golaha hay waan imanaya oo noogu yimi oon hawshiisan ka gudan ta kale waxay ahayd markii 80 lagu dhawaaqay kolleyba qolada mucaaradku qolada shirkidoonka way eedaysay oo ishaadna lagu wadahayay shir degdeg aan isugu nimi xafiiskii sheekh ibraahim loo naxariistay markaasaa la yidhi war waynu isbaraxne axmed sidaynu u gaadhnaa waa habeennimadii axmedna b b c da ka hadlay oo yidhi odayaal baa la dhaqdhaqaajiyey halkii baan isu soo yaacno markaasaa la yidhi yaa u tegey mase anagu u tegi kari mayno adigu u tag teleefon baan soo diray marwadaa iga qabatay marwo aamina markaasaan idhi ergaan oo odayaasha baa soo diray waan doonayaa mase tiri waan kugu dhiibayaa way igu dhiibtay waxaan idhi waxaan ku doonayaa inaan deg deg isu aragno raggii la fadhiyey warka iga soo gaadhay ha u tegin baa la yidhi tuugtuu dhashay uu ka mid yahay ha u tegin waan u tegayaa labadeeda keliya ayaa hodheelkii xaraf la odhan jiray ayaanu geed hoostii labadaba fadhiisanoo fariintii aan u siday ayaanu sheegay wuxuu kari karaya inuu yidhahdo waar dalkaa ka baxa waxaan u qaatay qadarin iyo ixtiraam aanu isku leenahay labadiisu ayaan u qaatay arrintaa dhowr jeer oo noqod laba tan idinka sheekeeyey guriga dhowr jeer baan isugu nimi sidii arrintaa loo xallin lahaa marka anigu axmed kalsooni weynna waan ku qabay aniga wuxuu ahaa dee qof dee aan eegto oon ku daydo ayuu ahaa nin geesiyu ahaa ninkaa dee inta xabadda dhegta loo saaray ee ka kadibtay ee diiday inaan shaqadii baajiyo axmed dee taariikhda somaliland buu ku suntan yahay waataanu daawanaynay halgankii waataanu daawanaynay dhibaatada kala soo kulantay duruufuhu ku soo noolaa cabsida taallay intaaba uu soo dhowr adeegay uu soo gaadhsiiyey dibudhiskiina raggii arrintii u weyn ka qaatay bay waa arkaysaan isagii sheekh ibraahim sheekh yuusuf sheekh cali badar nabada guddidii bilowda bay ahayd oo labada dhinac ka socota oo sheekh yuusufna xaggan xukuumadda matalayo axmedna oo mucaaradka matalayo gundhig bay u noqotay halka ka bilaabantay dib u heshiisiintu guddidaas ahayd axmed dhabareedegaasana uu lahaa qof ilaahay caqli siiyey uu aqoon siiyey oo marka wada doodaysaana iska soo horjeedaan aada u qushuucayso raggii nala doodayay buu ahaa maalintii dastuurka la present garaynayay aniga iyo waxaa presentationka lahayn aniga iyo allah u naxariistay faysal xajaamac geedi gareeqaankii labada nin ee noogu darani ee aanu tab kala bixi weynay isagii fagadhay ahay oo doodoodu dee niman waxoodu dhisan yihiin marka axmed taariikhdeenna uu ku santan yahay la ilaabi maayo wax badanoo inaan ogeyn oo taariikhdiisa ka midana way soo bixi doonaan siyaad barre tallaabooyinkii ugu wanaagsanaa u qaado taariikhda ku geli doonaa waxaa weeye kaabinetkii ugu wanaagsanaa soomaali soo mara ayuu sameeyey markuu shaqada bilaabay axmedey baa ka mid ahaa axmed baa ka mid ahaa raggaa kale badan ee de saaxiibadiisa ayaa ka mid ahaa maxamed aadan sheekh weyrax maxaanku idhahdaa ibraahim meegaag maxaanku idhahdaa jaamacadda ninkii loogu magac daray gahayr rag badan oo caqiibo leh waana raggii kacaanku intuu xawliga ku socday dee lahaa hawsheeda nimanka militarigii hawshaa may lahayn laakiinse nimanka lahaa nimankaa cusub ee dee berigaa la geeyey bay ahayd laakiinse waa kii dee balaayadu inagaga dhacday intaana soomaali o dhan baa og intaana soomaali o dhan ayaa og 6 sannadood ama 7 sannadood oo kacaanku ugu wanaagsanaa raggii jidka u jeexay ee lagu dalkuna hore u maray ee wax ku dhismeen aqoontooda siyaad barana aqoonta axmed aad buu u qiimeyn jiray waa ta laga sheekeynayay waanan ogeyn aad buu u qiimeyn jiray wuxuu isku dayi jiray inaanu ka tegin meesha uu hayo marka
ونكتع سيدنا قويسكي قرك سومالان يومد الصومالية دورنا ولا بضع مرحلة ذيك الدول دولتي سيفل كان ودي مدحدي كم ده ديجية ده قرشيتي عجا ودقي دولتي كان لحدي سنة دودي تدودي سنة دول رئيسي وناك سنة ترقي مشرها وجهي يا أبال كذا الله يومد ولا ميوقت هاي أيوها مركا إلى هاي السمرية ما نقصيو قويس كانوا نتع سيديننا قويس وناكسن وكرامله ولغفانو ونقولنا إهل كدقان دونو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.